Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Buuggani waa mid ka mid ah buugaagtii ugu qiimaha badnaa aan akhriyo. Waxa uu ka sheekaynayaa qiso aad iyo aad u cajiib badan, waana mid ka mid ah buugaagtii ugu xikmadda badneed ee Soomaalidu qortay. Ku darso, waana mid ka mid ah qisooyinkii ugu murugada badnaa ay Soomaalidu qortay. Gabar aan asxaab ahayn ayaa buuggan ii keentay, waxayna igu tiri, "Walaal Maxamedow, buuggan waxa uu u qalmaa in kanaalkaaga aad soo gelisid." Intaa waxay ii raacisay, "Waan hubaa in buuggan boqolkiiba boqol ku qancin doono. Akhri, kadibna asxaabta kanaalkaaga u soo gudbi." Run ahaantii, akhriska buuggani waa igaga duwanaa buugaagtii hore ee aan akhrin jiray. Galab ayaan u fariistay akhriska buuggan, anoo kursi dhigtay daaradda hore ee gurigeenna. Weliba koob shaah oo bigeys ah ayaan soo shubtay. Waxaa isku kay helay jawigoo macaan, shaahoo macaan iyo akhriska buuggoo macaan. Waxaan la yaabay, markaad buuggan akhrinaysid ilaa aad dhammaysid ma istaajin kartid. Sidii balwaddii ayuu kuu qabanayaa. Naftaaduna waxa ay leedahay, maxaa xiga, maxaa xiga, maxaa xiga. Xamaasadda cajiibka ah uu buuggani xambaarsan yahay awgeed, saacado gudahooda ayaan ku dhammeeyey, sidii bogba bogga kale uu iigu dhiibayay. Salaadaan u soo tukadaa, kadib akhriska buuggan ayaan ku soo laabtaa, anigoo ilaaway howlahaygii kale. Waxaa laga yaabaa in aad istiraahid ammaanta buuggani waad ka badbadisay. Maya walaal, intaa iyo ka badan ayuu u qalmaa. Qoraaga buuggani waxaa magaciisa la yiraahdaa Cabdibashiir. Daabacaaddiisii labaad waxa ay soo baxday 2003 magaalada Stockholm ee waddanka Sweden, halkaasoo qoraagu uu ku noolaa. Sanad ka hor ayaan taxanahan u qoondeeyey in aan soo geliyo kanaalkayga, bishii shanaad 2020. Laakiin nasiib darro, isla bishaas shanaad musiibadii igu dhacday waxay ahayd in layga jabsaday kanaalkaygii weynaa ee 30,000 ku dhowaa. Taxanahaas iyo mowduucyada aan soo geliyaba waxa aad igala socon kartaa kanaalkan aad hadda iga daawanaysid. Buuggani waxa uu ka sheekaynayaa reere la yiraahdo Soomaal oo ku noolaa deegaanka Dalsan, iyo marti ay ku khaldameen oo qorismaris ahayd. Murugo tii ugu darneed ayay gelayaan reer Soomaal, ilaa aakhirkii carruurtooda intay qashaan ay cunaan. Taasina waxaa ku kalifay gaajo tii ugu weyneed oo haleeshay, halka dhulkooda awalkii hore uu ahaa mid ka mid ah deegaanada ugu wanaagsan. Reer Soomaal mar way murugoodeen, mar way farxeen, mar way yaabeen, mar waa la khiyaamay, marna waa loo awood sheegtay, marna way guulaysteen. Reer Soomaal waa ummad dareen walba dareentay, dhibaato iyo farxad walbana ay soo martay. Buuggani waa uu i qanciyey, sidaa darteed ayaan taxane ahaan u jeclaystay in aan idiin soo gudbiyo, aniga oo isku dayi doona in taxanahan aan soo gaabiyo. Qoraaga si fiican oo qurux badan ayuu buuggan u qoray, Ilaahay ajar iyo xasanaad ha siiye. Si aan taxanahan u bilowno, 3 shardi ayaan wataa inaad ii samaysid. 3daas shardina ma adka oo way fududahay. Shardiga koowaad waxa weeye, muuqaalkan aad hadda daawanaysid like saar. Waan rajaynayaa in aad like saartay. Shardiga labaad waxa weeye, subscribe taabo, weliba adigoo gambaleelka furanaya, si maalin walba ay taxanahan kuugu soo dhacdo. Waxaan rajaynayaa in aad like saartay, subscribe-na aad saartay. Shardiga ugu dambeeya waxa weeye, muuqaalkan share dheh oo asxaabta WhatsApp-ka kuugu jirta u dir ama Facebook-ga. Waan ogahay haddii aad share maqashid waad ka sii jeesanaysaa. Waxa aad is leedahay iska daa dadka kala share gareenaye. Ogow walaal, haddii aad adigu share gareen weyday, dadkuna ma share gareenayaan. Halkaaga share ha yaraysan, waxaa laga yaabaa in 10,000 oo qof ay isii gaarsiiyaan. Fadlan share dheh si ay dhiirigelin iigu noqoto. Maalin walba 2 saac oo habeennimo ayaan taxanahan soo gelin doonaa, haddii aysan qadarta naga hor imaan. Kuna soo biir page Facebook-geena Xogbaahiye
inkastoo ay jiraan dad badan oo naga daba samaystay, laakiin linkiga saxda ah description-ka ayaan kuu soo dhigayaa. Daawade, waa inooya qaybta labaad, iyo adigoo muuqaalkan like saaray, kanaalkana subscribe taabtay, oo weliba share gareeyay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.